noloshu waa hardan iyo dadaal mana lahan yaraan iyo weynaan si dhaqaale looga sameeyo sawir qaadista waayahan waxa ay u baahan tahay faham iyo xirfad gaar ah waa Cali Nuur Sheekh Xasan Kaynaan da'yar dhigta heerka koowaad ee jaamacadda waxbarashadiisa iyo noloshiisa kale ee shakhsiyadeed waxa uu ka dabaraa labada maalmood ee Khamiista iyo Jimcaha isagoo dadka ugu adeegaya sawir qaadis soo jiidasho leh si uu lacagta uu isku dabaro uga helo bogan gal ganacsi oo looga faaloodo arrimaha dhaqaalaha iyo ganacsiga kana duulaya in dhalinyaradu ay helaan aragtiyo u horseedaya isku filnaansho dhaqaale ayaa warbixintan ugu kuur galay talaabooyinka ku dayashada mudan ee Cali Nuur midani oo hadda tusaale kale aniga horta qof wax ma weydiiyo ani la ismaaray qof amaanta dhaha dhanka waxbarashada wax sana iska maaray hadii nololeed taana iska maaray hadii baashaan magaalo joogtaan ana iska maaray waa wax aad u xiiso badan in si qoto dheer loo ogaado sawir qaadista maadaama ay jiraan dhowr hab oo sawirada loo galo ama loo qaado waxa kale oo jira barnaamijyo ama aalado casri ah oo fududeynaya qurxinta sawirada Photoshop waxaan ku sameeyaa waxa horta waxa la jira decoration wixii decoration Photoshop oo isticmaala bis inta kale waxa waaye waa lagu dhibtooda halkii sawirada dhibaato ka maray kamarada bas aan adeegsadaa sababtoo ah adooti waxa rabaa qofkaan hadii mobile ku qaado adooti editkiisa laga dareemo in waxa mobile yahay laba suuma isticmaala midna waxa waa mid oo dheer midna mid keerka u isticmaala marka oo shay iyo qofka marka isku keenay Kaynaan waxa uu ciwaan uu ku soo gudbiyo sawirada xirfadeysan ee uu qaado uu ku leeyahay barta TikTok waxaana ku xiran in ka badan nus milyan ruux waxyaalo kale adiga wax oo adiga mar aan iska baashaalo kale video iska doo macquul inaan soo geliyo laakiin badana 95% wuxuu badan yahay xirfad soo qaadista bisan soo geliya marka dadka TikTok ku xiran iyo dadka kale ee magaalada jooga marka ay ku arkaan kale falcelin maxaa kala kulmay wallahi badana horta falcelin badan kala kuma siiba beertaan marka la joogo kale qofka ku arkaayo Allah wiilkii moos kan miya u leeyahay mise wiilkii basbaas kan miya marka aniga wiil moos wiil basbaas u dhajeeyay magacaas inuu bixi doonaan oo malaabo dhalinyaro badan oo qaarkood ka baxay jaamacado gudaha dalka iyo kuwa dibadda ah ayaa fadhiya goobaha fadhi ku dirarka waxaana ay taasi ku sababayaan in dalka ay ku yartahay fursadaha shaqo ee dhalinyarada